السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معني wanaagsan meel kasta joogtaan oo mar kale barnaamijkii barashada daawooyinka ama farmakolojiga qaybtii 18aad. qaybtan waxay la socotaa qaybtii ka horeysay ee ku saabsaneed daawooyinka loo isticmaalo xanuunka malaariyada ama duumada hadba saa u taqaanaan. qaybtan waxaan kusoo qaadan doonaa daawada loo yaqaano chloroquine oo markaasi kamid ah daawooyinka loo isticmaalo xanuunka duumada. haddaba daawadan chloroquine brand name-keeda waxaa loogu yeeraa aralin phosphate. daawadan waxay ku timaadaa kaniini, sharoobo iyo weliba irbad. isticmaalka daawadan waxaa loo isticmaalaa sidoo kalena looga hortagaa xanuunka duumada ama malaariyada. sida la wada socono xanuunka malaariyada waxaa keena ama sababa ilma aragtida parasite-ka markaasi loogu magacaabo plasmodium oo markaasi u kala baxa 5 nooc oo kala ah plasmodium vivax, plasmodium malariae, plasmodium ovale iyo plasmodium falciparum. dhammaan waxay sababaan xanuunka malaariyada. sidoo kale bini'aadanka waxaa usoo gudbiya xanuunkan duumada kaneecada mideeda dhadiga ama nooceeda dhadiga ah ee markaasi xanuunka ama jeermiska xambaarsan. side effect sida la wada socono daawo kasta waxay leedahay waxyaabo loogu yeero side effect ama calaamado oo qofka saacadaha ugu horeeyo daawada qaato isku arko walow dadka qayb aysan isku arkin. haddaba daawadan chloroquine qofka markuu qaato saacadaha ugu horeeya waxaa laga yaabaa inuu isku arko waxa loo yaqaano loss of appetite ama inuu cuntadii markaasi uu xagga cuntadii baahidii u qabay oo kale inay ka yaraato oo wax gaajaaba aysan qabanin ama cuntadii inay ka xiranto. dadka qaybna waxay isku arkaan waxa loogu yeero diyaariya ama shuban yar walow dadku aysan isku mid ahayn, qaybna isku arkaan qaybna aysan isku arkin. haddaba daawadan siday u shaqeyso waxaa loo isticmaalaa in markaasi looga hortago ama si lagu daaweeyo si markaasi loo ciribtiro ilma aragtida parasite-ka ee markaasi sababaysa xanuunkan duumada ama malaariyada. maxaa dhici kara haddii daawadan qiyaas ka badan isticmaashid ama qiyaastii lagugu talagalay in ka badan aad qaadatid. haddaba daawadan qofka hadduu qaato intii loogu talagalay in ka tiro badan waxaa dhici karta qofka inuu isku arko waxa loo yaqaano loss of vision ama qofka in aragtidiisii ay sii yaraato ama aragtidii in markaasi ay ka daciifto. sidoo kale waxa loo yaqaano low blood cells in unugyada dhiigga ay hoos u dhacaan ama inay markaasi normalkii xadkii loogu talagalay ay hoos uga dhacaan. sidoo kale waxa loo yaqaano muscle damage qofka markaasi in uu ku yimaado murqo xanuun. qiyaasta daawadan hadba waxay ku xiran tahay qof weyn iyo qof yarba qofka da-da uu jiro, xanuunka markaasi haya intuu la egyahay iyo weliba calaamadaha haya. sababtoo ah xanuunka duumada ama malaariyada waxay leedahay heerar kala duwan oo kasoo bilowda mild malaria oo ah malaria meel dhexaad ah oo qofka xaalad caadiya uu ku sugan yahay, moderate malaria markaasi malaria meel dhexaad ah oo qofka markaasi calaamadaha ay ka muuqdaan oo xanuunka markaasi uu markaasi laga dareemayo ama laga arkayo. sidoo kale waxa loo yaqaano severe malaria oo ah qofka markii xanuunka uu soo rito oo xaalad culus uu galo ama xaalad emergency ah oo qofka markaasi uu unugyo badan oo jirkiisa ama xubno badan oo muhiim ay markaasi ay asiibto jeermiska ama ilma aragtida loo yaqaano plasmodium. haddaba qiyaasta daawadan la qaadanayo waxay ku xiran tahay ilmaha oo kale, ilmaha da-diisa, sidoo kale ilmaha culeyskiisa. haddaa qof weyn tahayna waxay ku xiran tahay qofkaasi da-diisa, sidoo kale xaalada markaasi qofkaas haya iyo hadba xaaladiisu sida ay tahay oo malaariyada ay u hayso. sidoo kale hooyooyinka uurka leh iyo hooyooyinka ilmaha nuujinaya iyo sidoo kale dadka xanuunada kala qaba sida xanuunada hypertensionka dhiigkarka ama sonkorta, xanuunada qofka waqtiga badan haya waxaa wanaagsan intaysan daawadan qaadan ama aysan iska isticmaalin inay marka hore la tashtaan dhakhtarka inay qaadan karaan in kale. sababtoo ah dadka qayb waxaa jira daawooyin hore ay qaataan ama daawooyin hore ay u socdaan
oo markaas laga yaabo daawadan haddii ay daawooyinkaas la qaataan inay iska hor imaanayaan. sidaa darteed mar walba waxaa muhiima qofka inuu ka taxadaro in daawooyinka uu isku qaadanayo ama isku cunayo inay noqdaan daawooyin aan wax dhibaataa ay ka imaaneen. sidoo kale qofka haddii uu daawadan iska badiyo oo intii loogu talagalay ama qiyaastii loogu talagalay iska badiyo, waxaa laga yaabaa inuu isku arko madax xanuun, dawakhaad ama wareer, isbedel ku yimaada garaaca wadnaha. haddaba daawo kasta markii la qaadanayo waxay leedahay 4 waxyaabood oo muhiima in markaasi la ogaado oo lagu baraarugsanaado. midda koowaad waxaa loo yaqaanaa drug interaction, oo ah daawo lala qaadanayo. tusaale ahaan waxaa jira daawooyin laisla qaadan karo iyo daawooyin aan laisla qaadan karin. qof waxaa jira horey xanuun u qabay oo daawooyin isticmaali jiray baa haddana gadaal xanuun kale baa qofkii ku dhacay, marka daawooyin kale haddana loo soo qoray. marka waa sababta dhakhaatiirtu markay dadka daawooyinka u qorayaan ay u weydiiyaan qofka inuu xanuun hore qabay oo daawo hore qaadan jiray in kale, sababtoo ah waxay rabaa inay hubsadaan daawadan ay qorayaan iyo qofkan hadduu daawooyin kala qaadan jiray inay iska hor imaanayaan iyo in kale. waana qodob aad iyo aad u muhiima bulshadana ay tahay inay ku baraarugsanaadaan oo aysan daawooyinka iska isticmaalin. haddii ay 2 xanuun ama 3 xanuun qabaan oo kale ama daawooyin isticmaalaan, inay dhakhtarkii la tashtaan daawada inay iska hor imaanayso, in laisla qaadan karo iyo in aan isla qaadan karinba inay iska hubiyaan. qodobka labaad waxaa loo yaqaano disease interaction. waa qodob muhiima markii qofka uu daawooyinka isticmaalayo, gaar ahaan dadka qaba xanuunada aadka u daran oo qofka isbitaalada ay ku khasab tahay inuu la galo, gaar ahaan xanuunada loo yaqaano chronic disease-ka oo qofka inta noloshiisa ka dhiban markaasi uu la noolaanayo. haddaba xanuunadaasi waxaa jira xanuuno qofka markaasi haddii 2 xanuun waaweyn ay ku dhacaan ay markaasi mid kasta in si gooniya loola tacaalo ama si gooniya qofka in loo daryeelo ay u baahan tahay. qodobkaas waa qodobka labaad. qodobka saddexaad oo tahay qofka markuu daawo qaadanayo inuu iska hubiyo waa waxa loo yaqaano in contraindication. waxaa jira waxa loo contraindication oo ah daawo kasta waxaa jira dad ay mamnuuc ka tahay inay qaataan. sababta ay mamnuuc uga tahayna waxaa weeye waa masalan dadkaasi inay xaalado kale oo caafimaad masalan ay qabaan. tusaale ahaan oo kale hooyada markay uurka leedahay oo kale ama markay ilmaha nuujinayso oo kale, daawo kasta may qaadan karto. daawooyin waxay qaadan kartaa khaasa oo markaasi cayiman oo loo xadiday. marka saa darteed daawo kasta waxaa jira dad gooniya oo la dhahay daawadaasi mamnuuc bay ka tahay inay qaataan. marka qodobkaasna waxaa la dhahaa contraindication. marka waa muhiim in la ogaado daawadan yee mamnuuc ka tahay. qodobka afaraad ee muhiima isagana waxaa weeye waxaa loo yaqaano indication. daawo kasta waxay leedahay dad loogu talagalay inay qaataan. marka waa systemka daawooyinka ay ku shaqeeyaan oo markaasi loo maro indication, contraindication. indicationna waa daawadan dad baa loogu talagalay oo loo soo saaray, macnaha waxbay dadkaas dad aan ahayn hadday qaataan. bilmasalan oo kale qof sonkor qaba daawo loo soo saaray, haddii qof kale oo xanuun wadnaha qaba uu qaato waxaa laga yaabaa qofka daawadaasi inay dhibaato u keento. marka waxaa waaye daawo walba xanuun baa loogu talagalay u gaara, waa in xanuunkaasi loo daayaa oo xanuun kale aan loo isticmaalin. marka daawooyinka qeybna markii la leeyahay contraindication waxawey daawada mamnuuc bay ka tahay qofka hadduu xanuun noocaasa qabo amase hadduu xaalad noocaasa uu ku jiro. muuqaalkeeni maanta intaasuu ku egyahay. haddii aad waxun ka faa'iiday la sii wadaag asxaabta oo na sii sheer garay. haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.